dowladda Puntland waxay u qabatay maleeshiyaad kasta oo aan sharci darro ku jooga gudaha Puntland aan ka amar qaadan dowladda waqti go'an baa loo qabtay gobolka bari muddadii dowladdu u qabatay waxaan xoojinaynaa ayadayna muddadaa loo qabtay inay ku soo biiraan laamaha dowladda wixii ka dambeeya xilligaa wixii ka yimaada mas-uuliyadda iyaga qaadi doona بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد داود يرا waxaan falanqeyn doonaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Boosaaso oo maanta lagu kala baxay iyo sidoo kale Garowe oo iyadan ay ka socoto hubka dhis lagu sameeyo ciidamadii uu watay Jimcaale Jaamac oo hawshooda iyadan hadda la guda galay waxaan kala falanqeyn doonaa Ethiopia muuqaalka daawanayseen dhowr kun oo ciidan ah oo ciidanka military Ethiopia ah oo hubka dhis lagu sameeyay hubka dhis intii lagu sameeyay يا فيرين تيلي قليا لصو بندقي مات إذا فلانقين دونا إثيوبيا حكسو عني برنامج حيوي صاحبكي دكتور شديد فلانقين دونا دكتور سوري ومرك هورا مانتا وحاركي المركة تاريخ بعد عضي مقالة بوساسو والو كلا بحي واركي سي مانتا إن حردي عيدنكي بأسف إلواتنكي السنة إيه فديرك كل حكوميين إن مانتا لقلو ورقي وهذا الله تيرنا يو خوبكي يوح مشيان آديات بدو ما تسنتهاي بدانو Puntland waxaa ka soconaya howlgallo xoogan oo lagu beegsanaya ciidamada BSF ee xiriirka la leh dowladda federaalka Soomaaliya ama sanadkii ugu dambeeyayba mushaaradka ka qaadanayay sida tooska ay u maamulayeen maaragtay Asad Diyaano iyo Maxamuud Diyaano iyo Janaal Jimcaale oo rogna isna dhawaan la soo riixay oo la sheegay in loo magacaabay taliyaha ciidanka qaybta 54 ee goboladaasi ka howlgeli jiray waayadii Birsamaagi waayadan Puntland dagaal waxay isu diyaarinaysay culus oo dhinacyo badan aha dagaalkii waa kii maalnimadii shalay bilowday ee gaalkacayaan oo wixii ka dhacay khasaarihii hubkii la boobay halkaasi lagu qanimaystay ciidankii BSF-na de wax la qabtay wax kala cararay ay ahaayeen Boosaaso ay hadda ka socotaa marka Boosaaso de waqtigii dagaalkii hore soo bilowday gaalkacay ilaa waqtigan inuu hadlayno Boosaaso waxay ahayd de xaalad jahawareer ay ahayd oo xeriyihii BSF-ta ay ciidanka Puntland galeen maamulka Puntland Saciid Abdullaahi Diin ka qamar qaata hub badan ay halkaas kala wareeyeen gaariyo Cabdi Bilo aad u tir badan baa la arkay oo meesha ku xareysan oo laba saddex saf ugu jira oo qoriga dhishikaha uu saaran yahay ayaa la arkay iyo ciidamada hubka dhigis lagu sameeyay si fudud ay Puntland magaaladaasi ku gashay oo hubkaasi ciidankaasi u la wareegtay waxa la isweydiinayaa ilma Diyaano iyo taliyaha booliska oo naqaan asagoo taliyaha booliska ninkii meesha haystay asagana xogtu waxay leedahay wuxuu caaray dhanka mudug galmudug iyo kuwa danab ciidanka danab ee dowladda federaalka Soomaaliya ee dhanka mudug jooga ayuu isu dhiibay oo xagaas u baxsaday dani ma dadka ma dadka ka reer Puntland horta ma reer Puntland ba kala shaqeynay mise awood ciidan ba artin jirta waxa la leeyahay waxan waa waxyaabo badan oo lagu jahawareerinayo dowladda Soomaaliya way soo geentay Puntland ba la leeyahay meesha horta dagaalka ma dhicin dagaal khasaare geystay oo dhimasho iyo dhaawac iyo barakac geystay iyo askar dagaalanta weli lama soo bandhigin
laakiin waxaa la leeyahay ciidamadii puntland hal saac markay meesha hareerayaan wixii meesha jooga way soo dhiibayaan haye waa la soo dhiibayaan ciidamadu way socdaan hal askari oo xabad ridaya male marka qorshahan kulley waxyaabo badan baa ku hoos duwan dowladda soomaaliya way ka fadhiisatay maanta oo golaha wasiirada ayaa ka fadhiistay xamse aad u xanaaqsan ha ra-iisul wasaaraha aad u xanaaqsan ee golaha wasiirada iskugu yeedhay weli doodii way socotaa sida wax u dhacay ciidamadani hadday markii hore ayna dagaalamayn ama puntland ay xidhiidh la lahaayeen ama hawsha ay sidaa u dhib yar tahay dee hubkaa badan looma geeyeen nimanka hub badan baa la siiyey kuwa dekada boosasa loo soo mariyey kuwa maaragtay dhulka loo mariyey hub badan baa iyo dowladdu hal sano ku daabulaysa oo xataa maamulka puntland ay isha ka fiirsanayeen laakiin wixii lagu daabulayay si fudud ayuu ugu gacan galay maamulka puntland iyo dadka deegaankaasi ugu gacan galay marka anigu waxay ila tahay un dowladda soomaaliya horta way uga dhamaatay gobolkaas puntland dowladda soomaliya way uga dhamaatay wayna ku fashilantay gebi ahaanba howlgalkeedii ahaa in la fargeliyo puntland in puntland wadadii la mariyo baydhabo in wadadii galmudug la mariyo gebi ahaanba waa lagu fashilmay dowladda soomaaliya halkaas weji gabax ayay kala kulantay waana lala yaabay sida fudud ee dowladda gacanteeda saldhigyadii badnaa ay samaysay sababta saldhigyadu waxay gaalkacayo qardho boosaaso maaragtay garowe ilaa maaragtay beelo badan bay ahayd oo dee ugu yaraan 7 sal 8 sal ka badan bay ahayd waxaaba dadku waxay lahaayeen mufalanqeeyaasha siyaasadda waxay lahaayeen see puntland sidaa loogu dhex galay oo ciidan dowladda taabacsa sidaa loogu dhex samaystay waxaa la islahaa deni meesha sawir unba ku hayaa laakiin sida fudud ay dowladdu u jabtay waxaa la dhihi karaa markii horeba filan la isla ogaa buu ahaayoo ciidamada inay mushaar ay ku helaan oo la rabay deni sababto tahay ciidamadoo dhan mushaarkooda ma bixin karo ciidamada haddii puntland ka qoran ee qabaa'ilka reer puntland ku midaysan yihiin qolo walba haddii la ciidankeeda mushaar la siiyo puntland marka puntland inay qayb xagga federaalka u dirto oo mushaar kaga qaataan ayagoo gudihii puntland jooga waxaana riwaad bay ahayd baa laleeyahy maanta markii la arkay inay doonayaan inay ciidamadaasi ay isticmaalaanna dee waa laga hor yimid waa mahadsan tahay etoobiya maanta waxaan arkayna iyadana maxaabiis aad u tiro badan oo ay soo bandhigeen nimankii tigreega ahaa ha tigray niyo waa la yaaban yahay nimankii tigrayga ahaa wax lala yaabay may soo fasaxeen haye oo maxaabiis ah haye dadku waxay isweydiinayaan dagaalka intaasoo maxaabiisa lagu qabtay muxuu ahaa goormuu socday goormuu dhacay haye iyo dadku isweydiinayaan waxaan ogeyn dagaalkii dhacay 1 August bishan aynu ku guda jirro oo dagaal socday ahaa taqriiban 12 saac si automatic u socday oo ka bilowday gobolka walqeeta ilaa maarta xuduudka Suudaan ilaa laga gaalayo Humeer ka socday deegaano badan ilaa gudaha Suudaan ku faafay qaybo ka mid ah koonfurta Tigray qaybo ka mid ah ka socday oo dagaal aad u safalaarana oo dowladdu ay ku dagaal gashay diyaarado aad u tiro badan oo la arkayay kolonyooyin gaariya oo Tigrayga oo aad loo burburiyo Dorolis aad u burburisay inkastoo markii dambe Tigrayga ayaguna Dorolis ay isticmaaleen la leeyahay way haysteen markii arkeen Dorolis loo lacay ayaguna isticmaaleen la leeyahay qaraxyo iyo dagaalo culus oo faraha la isku tagaa dhacay waa kii dhinacyadu ay guulo waaweyn kala sheegteen dowladda Itoobiya waa tii sheegtay dhulkii ay ka dagaal gashay inay ku sugan inkastoo inay qabsanin magaalada Shiraaro iyo magaalada Shira la dhaho labadaba ayna qabsanin dowladdu laakiin ay isku dayday ay qabsan weyday laakiin waxyaabaha la yaab kale ayaa ciidankan dowladdu goormuu gacan galay bal dhowr kun oo askari oo hubaysan adigu dagaal la garay nin la qabto 2 nin oo 3 nin 4 nin oo la hareereeyay la garay oo isdhiiba la dhaho gaari ciidan oo intii dhaxda loo gaama la banjar iyo askarti jooga ay isdhiibaan la garay laakiin 5 kun oo askari oo hubaysan oo rag loogu talagalay inay sanad dagaalamaan oo dhaawacooda ay qaataan umeedkooda ay qaataan waay ay isu dhiibi karaan hubkay wateen away bal aduu ilaahay bal kun askari see loo qaban karaa bal aduu isweydii waxay ku caddahay Tigraygu taatika ay isticmaalayeen dagaalkii 2020 bishii September dagaalkii qarxay ee u dhaxeeyay TPLF iyo dowladda federaalka waaga ay Tigraygu wala isku tagay adduunka dhan baa isku tagay xaqda dhabta waaga Abiy Ahmed wiil yar oo markaas soo baxay buu ahaa oo Nobel Peace Prize qaatay oo Eritrea Ethiopia oo 20 sano isla hadal oo dagaal colaad ka dhex dhul isku haystay heshiisiyay oo Eritrea Ethiopia ay saaxiiboobeen dowladihii dariska oo dhan la heshiiyay sida Soomaaliya oo kaleete Suudaan oo kaleete adduunka oo dhan la heshiiyay oo Nobel Peace Prize loo siiyay inuu nin nabdoon yahay siyaasi cusub oo soo baxay qoomiyad uu ka dhashay aan waliid xil qabanin kuwana dhibaato ku yihiin kuwana ay dhibaato ku yihiin nimankan ay geeska Afrika adduunka qalalaas ka wadeen marka waxa nimanka ninka wala taageeray arinta ayada marka maanta way gadisantay
maanta waxay u gadisantay inay dhinaca tigrayga taageerada ay noqoto sababtoo tay wixii la mooday abiy uu noqon waayo abiy axmed wuxuu noqday nin dhaha badaha badda cas ilaa baabulmando anagaan ahaan jiri boqortooyaan ahaan jiri saylac baan lahaan jiray boqor hebel bisaan ahaan jiray jabuuti anagaan ahaan jiray jabuuti waan kareennay eritrea sharciga ku wada sax maha qaramada dib waa inay faylka u furtay lagu aqoonsaday inuu mid sharciyada loo maray ahaa dastuurka etoobiya wuu khaldan yahay waxbaa laga barnaamijyo wuxuu galay adduunka uu la yaabay oo lay warday waxna waa fidnaad wadaa iyo colaade maa joojis gobolkii tigrayga dagaalkii ka dhacay yaa hubku isticmaalo waxaa la ogaaday in diyaarada barakdaar t b two la dhaho oo turkiga lagu sameeyey iyo kuwa ruushka lagu sameeyey inuu isticmaalay oo dad rayidoo badan ay ku dhinteen 1 milyan ka badan baa la diiwaan geliyey etoobiyaanka halkaa ku dhintay waagaa marka tigraygu taadka isticmaalaya ma jirin markii dagaalka uu lasoo tigrayga markii hore waa kii la riixay ee lamaqale la gaaray kadib rogaal celiskii tigraygu intay buuraha kasoo degeen waa kay ilaa gobolka axmaarada ay deedheesi iyo lalibeeli iyo soo dhawaadeen goondhar kusoo dhawaadeen taadka isticmaalan waaga waxaa jirtay ay ciidamada wacayeen saraakiisha oo dhahayeen dalka isbedel baa ka socda ninkaa waa dambiile hadhow dembi ha gelin hadhow xil ma qabanays waa lagu beegsan doonaa sharciga waa lagu dili doonaa haddaad ka waansoodo annagu hadhow dhawaad kuma geysanayno tigray baa nala dhaha wax noocaaysan askarta la wadaagi jireen baa la yidhoo lambarey hayeen baa lale ciidanka xidhiirhkiisa oo ay hayn jireen hadda waxaa loo malaynayaa marka inay haddana xidhiir sameeyeen oo askarta xidhiir la sameeyeen saraakiisha ciidan sababto rag saraakiil oo darajalaba ayaa kasoo dhex muuqatay maxaabiista kasoo dhex muuqatay barbahinta tigray ka hadashay waxaa loo malaynayaa inay dhaheen ciidanka markii xabadii dagaalku uu bilowdo makarafoonaan harraha kaga afeen ciidanka adoo sargaalkii waxaad dhahdaa ha dagaalamina qoryaha ha dagaalamina naftiina halaagina marka waxaa loo malaynayaa ciidankan inay tigray harraha ka makarafoona ay harraha kaga afuufeen ay ku adimeen oo ay dhaheen isdhiiba khatar baad ku jirtaan xaggan haddaad u dhaaqdaan qarxaya inuu xagga sargaalkiina uu yidhi waan isdhibnay hana weerarina ciidankii oo qulqulyo sargaalkii hoos socda maa la arkay oo hubkiina laga urursaday marka ninka abiya jab weyn buu wajahayaa dagaalkun hadda buu bilow yahay hadda lasuu urursanayaa ayaguna hadda gobolka axmaarada kusoo saqeen baa la sheegay dhankan wallay soo gaadheen marka waa arkaynaa wax ka soo kordhaa aad u masanta